sheekada qaladkii murugada badnaa. Sheekadan waxay ka hadlaysaa qiso dhab ah oo dhacday, waxaan idiin soo gudbinaya bahda Sharmaarka Media. Sheekada waxay xambaarsan tahay qiso dhab ah, waana mid xanuun badan, isla markaana taabanaysa meelo kala duwan oo xagga nolosha ah. waxaana sheekada ay ku bilaabanaysaa sida tan. qof kasta waxa uu ku fikiraa misana uu ku hamiyaa hirgelinta marxalado kala duwan oo la xiriira xagga nolosha. Xamse waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah, waxa uu lahaa hiigsi fog oo xagga nolosha ah. mar waliba waxa uu jeclaa inuu noqdo wiil wax barta, sidoo kalena uu gaaro hadafkiisa hoggaanka uu kaga dhigto xagga waxbarashada. Xamse isaga iyo reerkiisa waxay ku noolaayeen gobol ka mid ah gobollada Soomaaliya, waxaana uu ahaa wiil ay jecel yihiin qoyska, maadaama uu ahaa wiil furfuran oo bashaash ah, waxqabadkiisuna aad loo jeclaa. dhalinyarada ay isku xaafadda yihiin dhammaantood waxay jeclaayeen mar waliba sheekadiisa Xamse, xitaa haddii asxaabtiisa ay ka waayaan meelaha la isugu yimaado ee xaafadda, waxay ka raadi jireen oo ay u dooni jireen gurigiisa si ay u soo kaxeeyaan misana ugu sheekeeyo markii la keeno goobaha la isugu yimaado. qof kasta oo dhalinyaro ah waa midka ku dhasha damac rabitaan. gabadha waxa ay hamisaa wiil, halka wiilkana uu hamiye gabar, balse dadka waxay ku kala duwan yihiin xagga dooqa iyo sidoo kale xulashada. waxaa jirta gabar qurux badan kuna nooleed xaafadda uu Xamse ku noolaa, laakiinse Xamse gabadhaasi kama dhaadhacsaneen maalin uun waad jeclaan doontaa, wax kastana waa ay qoran yihiin oo xagga Rabbi ayay ka qoran yihiin. Xamse waxa uu dareen rabitaan u qaaday Shamso oo ahayd gabadhii xaafadda ay wada deganaayeen. Shamso waa gabar da'yar, Allana waxa uu ku manaystay qurux iyo sidoo kale dabeecad, balse ma aysan ahayn gabar ku sheeko tirsata wiilasha xaafadda la degan. Shamso waxay isku haysatay in gabdhaha xaafadda ay wada degan yihiin ay wax badan dheer tahay, maadaama wiil kasta uu jeclaa barashadeeda. Shamso waxay ahayd ardayad, waxaana ay dhiganaysa mid ka mid ah iskuullada ku yaala isla gobolka ay ku nooleed. qoys ahaan Shamso waxay ka soo jeedaa reer aan dhaqaalaha xaggiisa hodan ku ahayn, balse labis iyo muuqaal ahaanteeda gabdhaha asaageeda ah ma aysan u xumeyn. Xamse ayaa dadaal badan ku bixiyey sida uu ku baran lahaa Shamso. waxa uu diidanaa in baadigoobka uu gabadha ugu jiro ay dareemaan dhalinyarada xaafadda la degan isaga. waa isku daygiisii ugu horreeyo uu doonayo inuu ku barto gabar muuqaal ahaan kor uu kala socdo ama uu ka yaqaano, balse Shamso magac ahaan iyo qof ahaanteeda intaasi raad dheer amaba aqoon durugsan uma lahan isaga. Xamse ayaa isaga oo neeftuuraya isweydiiyey sida tani. dunidu waa ay xaalado badan tahay, qof kasta maalmahan wuxuu leeyahay maxaa kaa qaldan. waxaan ahay qof uu qolofkiisa uu keliya jirhaaneed uu joogo, balse aan qalbigiisa joogin. gabadhan xaqiiqdii waa mid qurux badan. Xamse markuu intaas uu isweydiiyey, waxaa soo hormartay Shamso, balse ma uusan lahayn awood uu kula hadlo. waxaa oogada jirkiisa qoysay dhidid badan. waxa uu daqiiqado kooban ku yeeshay muuqaal aad moodo qof bilo badan nasiino aan helin. Shamso iyada wax rabitaan xaggeeda kuma jiraan, sida caadada u ahayd socdaalkeeda ayay sii wadatay. waxaana ay waqtigaasi uu Xamse uu arkayay u socotay gurigeeda. Xamse waxa uu bilowday jawi cusub, waxaa gaabsi noqday sheekadii badneed ee lagu yaqiinay, waxaana uu bilaabay in dhalinyarada asxaabtiisa ahayd waqti badan uusan la qaadan. waa arrin dhibkeeda leh markaadan aqoon meel aad kala xiriirto ama si aad ula hadasho qof uu damac kaa galay. Shamse ayaa iyadoo subaxyada ka mid ah u socoto iskuulka ay wax ka barato, waxaa waddada u istaagay Xamse, waxaana uu yidhi sida tan. assalaamu calaykum abaayo, waan ku salaamay, waxaan filayaa waad ka daahday iskuulka. intaa markii uu yidhi Xamse, wax jawaaba ma uusan helin. Shamse iyadoo sii dhoola caddaynaysa ayay socdaalkeedii sii wadatay. horaa loo yidhi nin dalna ma daalo, balse Xamse waxa uu muujiyey weli in uusan quusan. maadaama jawaab aan la siinin, waxa uu bilaabay markiiba in Shamse uu daba kaco si uu u soo ogaado iskuulka ay dhigato, halkaasna uu kaga baadigoobo xog isaga anfici karta. Shamse maadaama mararka qaar iskuulka ay lagu baxsi ku tagto, waxa ay gaartay iskuulkeedii iyada oo socod boobsiisna uu ku jiro. waxa ay gashay albaabkii iskuulka.
Xamse oo aad moodid ruux maalmo badan waddo ku soo jiray, aadna u daalan, neeftuurna uu ka muuqdo, ayaa meel aan ka fogeyn iskuulka hor fariistay. Inkastoo inta uu daba socday Shamso uu dhuumaaleysi ku jiray si aysan iyada u arag. Xilligii iskuulka ardayda la soo fasaxaya ma ahan waqti dhow, waxaana Xamse uu aaminsanaa in uusan saacado badan sii fadhi karin meesha. Isaga iskuulkiisii waxa uu ka dhigay mid uu u gooyo maalmo badan sababo la xiriira xaaladda rabitaan ee ku soo korortay. daawada intaa haynoo joogto qaybtii koowaad ee sheekadii aan ugu magac darnay qaladkii murugada badnaa. Sheekadan waa qiso dhab ah u dhacday, haddaba yaan lagaga sheekeynin ee la soco qaybta labaad.